سوني كاس هذا نقول مية خير ورسماء ساقول لما قرني أنا ولا الدقنين وأنا سنقانو وأنا ولا الدقنو وحولها يجا جيلي سمدي سان قرنا يا أنا كي قرنا يا إنه ما أنت حوف يقعد يقعد حوف طيب حوف ما حق بقى يساقينا هبر قدير شاربنا كله قيو إلى الششاية كمان وعناه habar gidir ya saacad markuu arko shaarbadu ka dhuuqayaayo futad uu roganaya anigana isaaq skeelayga sumadiisa garanaya birqaabka garanaya iyo alifkay labada dhaad anna aan garanayo oo isoo muu doonaya inuu xuux iga dhigo beenta iyo fajidaas wata caruur kumanaan kunba naga maqan badulka hoostiisa la mariyay ma jeerteen laayay way annaga nalama khaldayo annagu the first enemy aanu leenahay waa ma jeedeen adeerkii baa nagala dardaarmay ma jeerteen sirtuu duugayay iyo goynay dabinkii adeer waa ku qananayaa tan dadkii dhiman jiray waa laba group ha isku khaldina dadkii gadooday maalintii dambe ciidanka Somaliland baa laayay oo Somaliland baa qiraacalo qiranaysa wixii ka dambeeyay xatraawi ka dambeeyay laakiin xatraawi marka lagu daro wixii ka horeeyay since 2010 ama 9 dhulbahantaa laayay infidence iyo cadeyntoodii ana haya right here waxaa laga siyaasad politic fog oo chain oo taxan baa laga leeyahay oo in maanta heerka la keeno oo dadka iyo Somaliland la iska hor keeno la isnacsiyo dadka la leyn jiray isaaq baa ku jiray dadka la leynayo Somaliland buu shaqeyn jiray CID-da dawladda hoose maxkamadaha waxaas bay ka shaqeyn jireen mukhaabaraadka laakiin dhamaantood all of them dhulbaantay ahay budgetkoodana madaxtooyada Puntland baa bixin jirtay buu hoodlana laga soo abaabuli jiray everybody knows marka anigu meeshan walaalde may meeshan ana de hadda sanqadho anigu ma jeerteen ma aqaano isaaq iyo ma jeerteen anigu midna ma aqaano anigu meeshan ana in adeer freedom of speech baan ku hadlaa meeshan xog sir baan ka bixiya anigu xataa hooyada iyo de ma jeerteen ana de wasade khaniis walay aamuniyo in adeer aamusaniyo waay man minadaan ku soo gabagabaysaa kuma soo gabaynaysa ma intaas ma ku deeqdaa waxaan ka hadlayaa dadka waxaa leyn jiray dhulbahantaa leyn jiray iyadoo lacag la siiyo lacag walaal aamu waxani malaayiin dollar baa la kala siistaa soo 400 daawan mayso anaa sheegaya lacagta Puntland baa bixin jirtay dadka laaya waayo nadiifo gabadha Naalaya Axmed nadiifa la yiraahday CID-da Somaliland ku jiri jirtay in adeerkeed ruuba baastoolad ku qabtay gaarigii fuulka ku shiday ganjeelku u taagnaa waxa weeye way kaga horeysay baastoolad bay ku qabatay markii la qabtay 40 nin oo dhulbahantaabu in adeerku ruuma sheego yiri wada dhulbahantay sirtii baa fakatay Puntland baa laga Axmed Karaash baa lacagta bixiya ina cami baa bixin jiray iyadoo looga goleeyahay haday fahan ina dadka bulshada innocent ah waxba galabsan iyo Somaliland warma qabtaa oo waxan baa waru hayeenkan iyo siyaasadahan la iska hor keeno oo la isku liso maanta wataasoo kumanaan dhulbahantaa oo rag iyo dumar isku jira ciid hoos maray oo magacyo qarasiyo Puntland baa bixisay qaras waxa lagu leynayaa dhulbahantaa kelmadan qaras kelmadan mujaahid kelmadan harti baawar kelmadan hiil qaran annaga nalama khaldayo annagu the first enemy aanu leenahay waa ma jeedeen adeerkii baa nagala dardaarmay ma jeerteen sirtuu duugayay iyo goynay dabinkii ilaahay ma jeerteen iyo harti hiil hanaga qabto dadka iyaga leynaya isaaqaday isaaq way khaldan qaar badan baa khaldan oo de qofka kule dhulbahantan ka difaacaya gooja cadde oo waa lagu soo duulay wadanka gooja caddan difaacaya oo jaacsi adego dadku isku diraya marka meeshan dadkan waliga daris ila xawiya aadan daris bay haayeen waana la leyn jiray anna waxbaan leyn jirnay waana la heshin jiray laakiin waay hadaba ma maqlaysaa hadaba way sideedii bay soo baxday waa tii namarisay waa tii nala kulaayay waa tii nala kurdulmiyay waa tii khaatimo lagu burburiyay waa tii dhulbahante magaciisa baabiisay hartigu walaal kelmada hartiga dhulbahanta iska jira
وكلمة آد يادو حنوصا واي هذا ما مغلس هذا وكلمة ما تشردان كو استعماله ولا أنا قلت دردار بارو قبنا بالبهنت هنا اللي يرادا ما تشرتين ولي جبنا هرتي شاقنا أنا لاندير أنا رياض بالبهنت هنا إن هذا بالبهنت هنا اللي يرادا أي ما مغلس هواي مركا ولا أنا قلت أسمع كل شيء يا نكن تروي سبب بالي هذا لما خلطوا أنا قلت دردارو أنا درويش ولا ومنها يقولت واي هذا درويش واي هذا ما مغلس درويشو أوكي درويش هذا هو كل شيء يا anigu hadaba waxaan horaan u soo arkay adeer ergaabay ka soo bilaabatay afarta beelood ka dhaaratay mooyaan inaad maqashay aniga taasiyad baliyada afar beelood ka dhaaratay wixii ergaabo waxa anigu ma aqaano anigu lasxaanood baan ka hadlay dadka ku leen jiray iyo majeerteenku dhaawaca iyo riiqda ay noo geysteen baan ku hadlayaa iyo gooja cadde iyo waxa maanta caruurtayada iyo dumarkayagii la laynayo majeerteen baa laynaya anigu taa ergaabo waxa diga I don't care niyo اوكي horta de may hadalkaagu riyeeri tuma dhaw ninkii amarkii ina kaahin bixiyay oo lahaa adeer iska taga dhamaantiin iska taga adeer iska taga anigu ma aqaano ma jeedeen dhaq ma aqaano anigu dhulbahanta maanta 900 oo nin baa laga dilay hadda WhatsApp group baan ka soo baxay number golisa ku dhageystaa 100 boys baa waxa weeye gone waa tageen maxaa lagu dilay ma jeedey baa dilay inuu mariyo doonayaa oo bahante isaaqina inta in leeg baa ka dhimatay iyagoo ku dagaalamaya isaaqu iyagoo ku dagaalamaya gooja cadaad u bahante laga difaacaya ilaahay baa kugu dhaarsheeday waa la isku lisaya dadkii way isku dhamaadeen gabay isku noqdeen marka walaalayaal anagu cadawga kaliya sunniga sida anigu miyo reer warsama fidda farxagaas waxa laga hayaa walaalayaal ma jeerteenku تبعال ليلة هلو وين ربين أوتوماتيك يا أي تبعال ليلة هلو يو همين كوي قراء عدان وين عشان وين أنت تنتهي اللي يراد البهنت اللي دمي ساق بعد مي وعدو وكلي عينو لنا هو first enemy عينو لنا وحو يرنكن فارح دلمر اللي يرادو نمان إساق عقوري كو قبطيو وي بهدلينو ميش واقوش عدي kuwii shalayto iska duubayay ninka abar jacay shalayto la iskaga duubayeen oo qarinaya dhulbahantu iska duubayeen dad miis waxa weeye waxa uu doonayaa dhulbahantaha inay weerar qaadaan isaaq laayaan isaaq weerar soo qaadaan dhulbahantaha dhameeyaan kadibna isagu gool siyaasadeed halka ka helo oo harti power sameeyo Puntland isku hayo barnaamij samaysto alliance samaysto harti soo celiyo dhulbahantinimada qariyo ويوضا يطيقوا ده شيء أنا وصل خنس لايبات أنا تام عصيات ككلي دبعتها كلي جوت عدد شو جنا ويني قوم تشيرتين يجون أفطوف تانو أنا بور تقرش لي ملها إن بيسنايو أنا برعد بريد نقنايو أنا لا مقتشرنايو إساق يوخن إساقو والله خلبي إساق يوخن ونسكيه شيلنا بريتون شيلنا وين الله يناينا وين الله يناتين ألف ما أنت ما والله القضب كهذا القضب صورة الله مرة بيو مدح توسي قضب كهذا البراش قلب ود مقلسي هديك قضب كهذا لا مسني كاس هذا الكودا يا واحد كل شيء يا هرتا ما أنت أصلا مسيتنا باخد الجنتاي يهيل ولا باخد الجنتاي يهيل هرتي أنت ولا حقوق شقيا هرتي لا تعانوا كشقيا ومتك وحوي فكرت على وياه شقيا ضدك اللينا يا تبدي البحث بدن بكل عيا ولي بتجمع سيادو بدن بي dhaawac tireen ma jeedeenku marka ana adeer maana waxa ku sheegay waxa weeye anu harti maahi inta roobkaas kala ahanay adana iga xiga masartan adayna ku soo hiliyeen waan talka si wanaagsan oo saraf ay ku soo hiliyeen waan ku soo garab istaageen waxa weeye anu waxaan ku leeyahay saraf kuma ahan inaad waxa weeye maxaa ku dhameey ku soo qabsatid waxa weeye dadka talka ay ku garab istaagay wixii qalad ay galeenna waxa weeye de waa gaarkeeda laakiin dadkaas waxa weeye maanta dad dhiigooda u shubeen qolama horta qolama tahay soo dhaw ka saana way ya day wax yar baan ku sheegaya dabaday hadda koor khaatuma la sameeyay 2012kii telefoon lagu sameeyay ila cali shire oo face president iyo farola soo weeraray tuma qof bay ku dileen khaatuma way burburiyeen dadkii cararay midba meel bay ka tuuran kabihii baa laga cararay وعدو
waxa weeyaan marka waxyaalo badan hadda koor caawa dhan baanu ka sheekeynayna hadda koor sheekh shariif 2012 aqoonsaday khaatumo cabdiweli cali gaaso madaxweynihii hore Puntland-ka ayaa warqadii yiri lama aqbalayo iyo farolo wada socda marka maanta inay isku kaaya bihiyaan oo annagana caashaqaan oo isaaq naga hor keenaan isaaq oo laba qarni aan wada deganayn oo aanu isnaqaano oo aanu wada degno oo xoolaha iyaga geeliisa sumadiisa aan garanayo annakayga garanaya inay maanta xuux iga dhigan xuux ma xaqba isagiina habar gidir shaarubada ka dhuuqayo ila shisheeye kama wacne habar gidir iyo sacad markuu arko shaarubadu ka dhuuqayaayo futad u roganaya anigana isaaq geelayga sumadiisa garanaya birqaabka garanaya iyo alifkay labada dhaad anna aan garanayo oo isoo buu doonayaa inuu xuux iga dhigo ma awaan way wareeda aan hadlay wax yarisi Allah hooyada sugaan hadlay darwiish 77 nin idoor baa tahay oo dhilay ah waxba dhulbaanta iska dhigin dhilay baa tahay oo idoor ah naarna tagooyada fitada harqsan ka wasay doqonta dhashay naagta meeshaas ku dayday inay timaado qofka caytama iska tuur meesha dood bad ku haysaa dumarka laftorkada lacay maxay soo doontay hooyada meesha lagu Soomaali kale nin ku yiraahdo ma jeertan bahay wala dhageyso naagta soo qaawisa ee meesha soo fuusha runta loo sheegaya هاي dhageyso wax yar dhageyso horta daarood ha Soomaali kale nin ku yiraahdo daarood ma jeertan bahay laas caarod maanta horta been buu sheegay ilaa inuu ka fogaado